بسم الله الرحمن الرحيم ولابكيني tobnaad access control list gaar ahaan extended access control list laabkan waxaan ku baranaynaa in sida access control list gaar ahaan extended kan uga soo sheekaynay in service fara badan la xiri karo in la xiri karo sidoo kale adeegyada tusaale ahaan port numberada maxaa loo yaqaanaa interfaceska laftooda waxyaabahaasi destinationka iyo sourceka labadaba aynu xiri karno waxaan sameynaynaa afartan tallaabo inaynu qaadno inagoo laabkeennii hore isticmaalayna si aynu uga faa'iidaysano ugu horeyn marka laabkeennii hore wuxuu leeyahay network loo yaqaano 192.168.1.0 dhammaantii yaanu http wax loo yaqaano inaanu u dirin waxa serverkaasi loo yaqaano 2.10 waa specific marka function baynu diideynaa http ga inuu dirnay okay waxa kale aynu sheegnay 3.1 subnetka isagana laanka kale xagga kale kan this is the one halkani gajiyan 3.0 isagana waxaynu u diideynaa inuu isaguna ftp sameeyo wax loo yaqaano file transfer protocol ftp inuu sameeyaan u diideynaa waxaan denied gareynaynaa sidoo kale acmp ga iyo traceka labadaba iyagana waan diideynaa iyagana sidoo kale marka halkan ii kaalay waxaan u imanaynaa markaa okay kan ii kaalay waxaan imanaynaa markaa router 2 I hope inuu systemkeeni wada shaqeynayo show ab root in markasta ka bilaabaynaa troubleshootingkeena waxaan arkaynaa destination ab networkaas uu inoo gaadhaya haddaba aan hore ka bilaabo configurationka config terminal de oo global configuration mode ka tag as soon as global configuration mode ka aad u tagtid waxa lagaaga baahan yahay inaad hore ka shaqeysid oo shaqadaad ka bilowdid hore waxaan leeyahay markaasi access control list ka saanu configure gareyn jirnay caadiga configure gareynaynaa waxaan leenahay markaasi access control list question mark waxaan kala baranaynaa access standardka inuu naqaanay iyo extended inuu mid kale range ka u dhaxeeyay 100 hadduu ka bilowdo 100 iyo 99 u dhaxeeya waa standard waa extended waa standard hadduu 100 ka yar yahayna marka waxaan leenahay tusaale ahaan 103 ayaan for example odhanaynaa deetana access control list group kaas inuu bixinaynaa 103 deetana waxaan leenahay denied icmp sorry aan horta diido ka loo yaqaano tcp/ip ga aan diido tcp/ip oo http ga mar dhow diidi doona marka waxaan leeyahay networkan diidaya waa network laanka xaggan inoo yaalo dhan waan diideynaa source ip addresskiisu waa ka wide card bit ku qaadanaya oo 255.255.25 opposite-kiisa ah oo ka ugu dambeeyo baa noqonaya .255 okay then maxaan diideynaa waxaan diideynaa su'aashu waa tan maxaan diideynaa destination ip gaan u diideynaa waxaan leenahay destination ip gaan waa kan ka loo diidayaa 2.10 waa loo diidayaa gebi ahaankiiba 2.10 maxaa gaar ahaan loo diidaya waxaana waa inooga bixi wide card bitkiisa 0.0 maadaama network uu yahay network aanu ahayn inuu yahay ip address single host ya wada waxaan ka dhigayaa 0.0.0 deetana waxaan leeyahay equal port numberkiisa sheegaya marka http haddaan maqalno marka waxa kale jira http iyo https just https kan qaadano portigiisa waa 443 http caadiga waa 80 isagu aniga browsing markaan sameynayna serverada gareyno port 88 waynaga raacina marka waa browsing kani marka http ga waxa weeyaan markaynu https isticmaalayna security u yahay kaas waa ka waxa kale nu leenahay access list 103 isla maxaan diideynay waxaan denied gareynaynay isagana sidoo kale network xaggan inoo yaala trigu isagana inuu soo gaari kara kan oo uu wax file u diri karin marka meelihii waxaan bedelaynaa un file transfer protocolska ay ku kala duwan http isna waa http deetana waxaan leenahay 192.168.3.10 waa single host ah kaas iyo xasuusno maya network oo dhan buu ahaa absolutely network oo dhan marka waxaa tiraa 0.0.0.255 waxaan u diidaynaa 192.168.2.10 oo wide card bitkiisu ka yahay muxuu noqonayaa markaasi port numberka ftp gu
ftp isagu waxa weeyaan baan leenahay 21 waayo port numbers waa well known ports baa la yidhahdaa iyo unknown ports marka file transfer protocolku waa kan waa 21 file transfer protocol haddaynu iska dhaafnayn isagana isticmaalna data file transfer protocol data haddaan isticmaalayna waa 20 marka farqi baa u dhexeeya kaasi waa kaas waxaynu sidoo kale u diidaynaa ICMP ga la diidayay waxaa loo diidayay 103 hoosti loo yaqaano oo kaasa isna inuu u diro 10.3 baa loo diidayay isna kaanaha samayno waxaan leenahay markaasi access list 103 laba access kale haddaad ka kala duwan ka samaysid laba meelood buu ku dhigayaa marka hal mid baynu isticmaalaynaa deetana waxaan leenahay okay access list 103 TCP ICMP okay no ma halka waxa iga qaldan denied baa iga qaldan waayo maynaan ma ogolaanayno deetana waxaan leenahay ICMP denied ICMP waa command waa trace route iyo command la isku dhahdo IC waa internet communication protocol internet control message protocol aan idhaahdo ayaa la soo gaamin jiray 192.168.3.1 sorry 1.3 wildcard bitkiisu waa hal hosti waa wada zeros okay maxaanu diidaynaa 192.168.3.0 ayaynu diidaynaa hostigaasi ayaynu diidaynaa maxaan diidaynaa marka weeyaan su-aashu waa taasaa su-aala waxaan diidaynaa waa ICMP ga ICMP haddaan diidayno isaga saasaynu ku qaadayn karnaa sorry maya waa inaan isagana wildcard bitkiisii ka sheegaa dabeetana waan iska dhaafaya .0 saasaan ku dayn karaa isaga intaa maxaa ka soo hadhay access list 103 deetana waxaan leenahay permit IP any nabaday kabacdina config terminal interface-kii waa inaan ku apply garaynaa 0.0 IP access group access no access group no IP access group IP access group 103 deetana waxaan leenahay interface-kiin ku apply garaynayno waxaan leenahay isaga yaanu ka soo bixin outbound waayahay fast internet 0/0 waan diidnay inay wax ka soo baxaan kaa laftiisana waxba ku socday isagana waa inaynu isna saarnaa okay oo weliba hadda waxaan tijaabin karnaa gaar ahaan maadaama file transfer protocol iyo waxyaabahaasi aynaan haynin waynu eegi karnaa configurationkiisa laakiin kaan tijaabinayna waa kaas ICMP gaynu garan karnaa marka waxaan leenahay exit interface fast internet 2/0 xaggaasi ayaan jirtay IP address IP access group 103 out wax ka baxay isagana udiid kabacdina waxaan leenahay routerkeena 1K tag deetana waxaan leenahay ping 192.168.3.10 waan fiirina marka waa kaa prohibitedkiiba soo saaray prohibited inuu yahay oo aan la ogolayn marka access control listkeeni aan eegna tusaale ahaan waxaan samaynay show access list ayaa lagu eegi karaa kan shuruudaheeni oo dhani 10 buu ka bilaabaa 10 buu dhexaysiiyaa waxaan waa serial number u qaato waxaa la denied garaynayaa nadweegaasi waxaa loo diidayaa nadweegaas portiga la diidayaa waxa weeyaan 443 waa HTTPS FTP baa la diidayaa file transfer protocol 21 baan qornay markii ma xasuutaa haddana FTP bi noogu bedelay 21 kii aan qornay kani muxuu qori waayay maybe inay saas tahay okay waxbaan biin garaynay 4 jeer baa la diiday marka kaasi waa kaas file transfer protocol laakiin kuwa isaga kuma tijaabin karno billahi tawfiiq